kulanti wanaagsan dhammaan meel kastoo adduunka joogtaan waa barnaamijyo taxan aan ugu talagalay dhacdooyinka adduunka ay saameynta ay ku yeesheen dunida dadka saameynta ku leh Soomaaliya iyo waliba caalamka maxaa isbedelay maxaa soo kordhay maxaa adduunka socda wax badan ka ogow taariikhaha adduunka iyo waliba dokumentiyadooda intaasoo dhan waxaa diyaar idin la ah Khadiija Maxamed Qalanjo la socosho wacan waxaa jira hanjabaadyo ay isweydaarsanayaan labada wadan ee Iran iyo Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii hore ee la soo dhaafay ku dhawaaqay in cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah la saaro dalka Iran hanjabaadan ayaa timid kadib markii ay Iran ka jawaab celisay gantaalihii ay ciidamada Mareykanka ah ku dileen hogaamiyihii ciidanka Iran ee Bariga Dhexe General Qasim Sulayman ayadoo dalka Iran ay gantaalahaasi ku riday xarumaha ay Mareykanka ku leeyihiin dalka Iraq Iran ayaa weerarkaasi fulisay kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay 3 bisha January Mareykanka ay weerar dhinaca hawada ah ku dileen taliyihii ciidanka Iran General Qasim Sulayman taasoo uu Donald Trump sheegay in uu ahaa jarnaal dhibaatooyin badan iyo dilal ka geystay Bariga Dhexe Donald Trump ayaa sheegay kadib markii saraakiisha ammaanka shir jaraa'id ku sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkii Iran ay ku qaaday saldhigyada ay Mareykanka ku leeyihiin dalka Iraq As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Donald Trump ayaa si aad ah u difaacay weerarka ay ku dileen General Qasim Sulayman oo ahaa xubin muhiim u ahaa dalka Iran sidoo kale wuxuu sheegay in qaarijinta loo geystay ay ahayd mid muhiim ah isla markaasna khatar ku ahaa caalamka waa sida uu hadalka u sheegay Trump su'aasha in la isweydiiyo mudan ayaa ah cunaqabateyn cusub oo la saaro dalka Iran maxay ka bedeli kartaa cunaqabateyntii hore u saarneyd dalka Iran Iran waa wadan awood ku leh Bariga Dhexe marka loo eego wadamada kale ee horey u burburay sida Iraq, Suuriya, Liibiya iyo kuwa la mid ah kuwaasoo ka wada tirsan Bariga Dhexe marka laga reebo dalka Turkiga oo awood weyn ku leh wadamada Islaamka kana tirsan ururka NATO madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa walaac weyn ka muujiyay wuxuuna sheegay in uu ka walaacsan yahay arrimaha xiisadda Iran iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dalka Iraq wuxuuna sheegay in ay ka go'an tahay ka shaqeynta nabadda Iraq Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu TV-ga kala hadlay shacabka wuxuuna sheegay in uu aad uga walaacsan yahay qatarta ka imaan karta
dilalka uu Mareykanka ka geystay gudaha Ciraaq ee Iiraan ee lagu dilay taliyihii reer Iiraan General Qaasim Suleymaan iyo guud ahaanba gobolka. sidoo kale Erdogan waa in laga jawaabaa ayuu yiri arinka gobolka ka dhacday oo aan laga aamusin. Haddaba muxuu yahay qorshaha Donald Trump si uu helo taageero ku aadan xiisada Bariga Dhexe gaar ahaan arinka dhawaan ka dhacday dalka Ciraaq ee Iiraan? Wuxuu shir la yeeshay taliyayaasha ammaanka Mareykanka una sheegay Arrimaha in ay meel fiican marayaan si aysan u niyad jabin wadaniyiinta Mareykanka ah. As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. wuxuu sheegay inaan wax khasaare ah ka soo gaarin jawaabtii Iiraan ay ka bixisay weerarkii lagu dilay General Qaasim Suleymaan oo ay Iiraan gantaalada la beegsatay saldhigyada ay Mareykanka ku leeyihiin dalka Ciraaq. waxaana Iiraan weerarkaasi ku macneysay in uu ahaa mid lagu muujinayay awoodda iyo jawaab loo baahnaa in la siiyo Mareykanka. dhanka kale Trump wuxuu ku adkaystay in uu ka soo horjeedo isla mar ahaantaasna aanu marnaba ogolaan karin in Iiraan ay haysato hubka nuclearka. sidoo kale wuxuu isbahaysiga NATO ka codsaday in ay arinkani taageeraan gacan weyn ka geystaan. intii uu Trump qabtay xilka madaxtinimada dalka Mareykanka waxaa aad u xoogeystay khilaafka dhinaca siyaasadda labada wadan wuxuuna sanadihii ugu dambeeyay Iiraan saaray cadaadis dhinaca cunaqabataynta dhaqaalaha taasoo uu ku cadaadinayo in ay haysato Iiraan hubka nuclearka iyadoo Iiraan ay horey u beenisay. Iiraan waxay sheegtay in uu Trump jabiyay heshiiskii wadahadalada laga gaaray dhinaca nuclearka ay horey u ogolaatay. dhinaca kale militariga Iiraan ayaa soo saaray bayaan ay shaaca kaga qaaday in ay si lama filaan ah u toogteen diyaarad rakaab ah oo ay Ukraine leedahay oo ay ku dhinteen 176 qof oo rakaab ahaa. sidoo kale madaxweynaha Rouhani ayaa sheegay in ay ahayd cilad farsamo iyo qalad dhacay qaabka Iiraan wax fasirtay. arintan ayaa ku soo aaday waqti ay socoto xiisada Iiraan iyo Mareykanka ee dilka taliyihii ciidanka Iiraan Bariga Dhexe General Qaasim. haddaba la soco qeybaha dambe ee taariikhda khilaafka labada dal Iiraan iyo Mareykanka waqtiyadii ay bilaabatay. tan iyo kulantideena dambe waa Khadiijo Maxamed Qalanjo oo idinku dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo.